السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عبد الله عبدي وحن كصدر راديو الله LC waxaan rabaa muuqaalka inagu hadlo dacwad aan u diyaarinay qoysaska codsadayaasha fiisaha family preference category si sharci aan ugu doodno xanibaada socdaalka ee uu madaxweyne Trump dhaqangeliyay 9 Juun bisha 9 Juun 2025 fadlan hadda danaysa dacwada isdiiwaangelinteedu way socotaa waxayna ku eg tahay 10ka bisha 10aad 2025 fadlan hadda danaysid intaan waqtigaas la gaarin isdiiwaangeli sidoo kale waxaan rajaynaynaa dacwadan inaan gudbino 17ka bisha October 2025 waa qofku wuxuu u baahan yahay soo dacwadaas uga qayb qaato waa inuu ka soo jeedaa horta ama uu haystaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا عبد الله عبدي وحنا كسر راديو الله LC muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay dacwad aan u diyaarinay qoysaska ama codsadayaasha visa family preference kuwaasoo si aan doonayn inaan ugu doodno si sharci ah xanibaada uu ku soo rogay madaxweyne Trump 9 Juun 2025 fadlan haddaad danaysid dacwadan waxaad iska diiwaangelin kartaa ka hor 10ka bisha 10aad 2025 dacwadan waxaa sidoo kale aan gudbin doonaa 17ka bisha October 2025 sidoo kale qoysaska ama qofka danayna inuu dacwada ka qayb gala ama uu ka mid noqdo waxa weeye waa inuu marka hore uu soo buuxiyo shuruudahan marka hore waa qofkaas waa inuu fiisiisa ama categories waa inuu ahaada F1 F2A F2B F3 or F4 sidoo kale waa inuu haystaa taariikhda priority date like taariikhda mudnaasha waa inuu haystaa visa bulletin already yani inuu ka soo muuqday visaas ama caseskaas codsaduhu sidoo kale waa inuu dhammaystiray oo buuxiyey foomkiisii DS260 sidoo kale codsaduhu waa inuu kasoo jeedaa wadamada uu saameeyey travel banka sida Soomaaliya oo kale travel bank uu saameeyay data Soomaaliya ama qof kasoo jeeda waxaad u qalantaa inaad ka qayb qaadatid sidoo kale qarashaadka kaaga bixi doona xagga lawyerka waxay noqon doontaa $1 iyadoo loo eegin tirada uu ka kooban yahay qoyska qoys walba waxa weeyaan $1 kaga baxaya ama case walba $1 kaga baxaya sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ogaano dacwad walba la gudbiyo waxay leedahay guul iyo guul daro ama inaad visa heshid ama inaad guuleysatid way noqon kartaa ballanqaad rasmi ah ma jiro sidoo kale waqti cayimanna mataqaana ma jirto because of go'aan walba waxa iska leh maxkamadda maanta go'aan ka gaarto sometimes waxay qaadan kartaa bilooyin sometimes waxay qaadan kartaa sanad marka ha filanin guul degdeg ah bilooyinka ugu soo horeeya ama maalmaha ugu soo horeeya waxaan dhahno marka sidoo kale qarashka qareenka waa mid mataqaana la bixin doono markaad isdiiwaangelisid ma ahan mid dib laga bixin doono like markaad VC ama guusha markay timaado kadib inaad heshid ama inaad bixisid ma ahan lacagtaas sidoo kale dacwadan waxaad iska diiwaangelin kartaa through our website yani website-keena adoo booqanaya Radio LC kadibna si online ahaan baad dacwadaada ama isdiiwaangelintaada aad gudbin kartaa kadibna waxaad noqon doontaa yani qof mataqaana si buuxda u soo buuxiyay shuruudaha aan ka soo hadalnay fadlan linkiga hoos mataqaana aan soo dhignay qofkii danayna inuu isdiiwaangeliyo linkaas ha taabto soo mataqaana u geed meesha mataqaana rasmiga ah iska diiwaangeliyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin tixgelinta aad siisay muuqaalkeenan